ma ku wareerisay injir madaxa ah mase kaa wareerisay gabdhahaada adigoo dadaalayo hagaajinayo madaxooda ma ka saari wayse injir agool timahasa ma u bixi waayeen waa cabashadii iiga timiday gabdho badan kuwaasoo soo dhaheen abaayo kasoo hadal biliis injirta wixii aan isaga dawey lahaynay anagoo dadaaleyno ayay mar walba nagu soo noqotaa waa u jeedaan gabadhayda timaheeda siday xariir u yihiin maasha Allah isaga daba dhacayaan hadda alaabtan hadaad marisid ku masaajaysid maalinka ciida injir iyo agool iyo madax oo isku dhagdhagan iyo waxaasoo dhan waxa leedahay bye bye iyo macsalaam waa saliidii timaha nafaqeynaysay ka ilaalinaysay daadashada siibashada timaha bixi waaye timaha gurmo nafaqa ayay siinaysaa wayna kobcinaysaa haddii ay timahaada kuu bixi waayeen adiga iyo gabdhahaadaba waxaan idiin soo saarnay saliida dadka waaweyn iyo ciyaal hayaha gabdho yaan idinka dhamaysanay saliidii timaha bixinaysa xariirna ka dhigaysa waxaan rabaa maanta inaan ka soo jawaabo gabdho in badan isoo weydiiyay oo idhahay abaayo injir ayaan meelan ka galna waynay anagoo dadaaleyno injirta waxa u isticmaali kartaa liinta haddii aad xitaa sidan aad u samaysan kar liinta jeex madaxana ku hool markii aad madaxa aad rabtid inaad dhaqatid ama gabdhahaad aad u dhaqaysid waxaan haystaa 3 xabo liin ah iyo 2 xabo oo moos ah intaas ayaa kaa kaafinayso maalinka ciida injir iska dhaaf iyo agool waxaasoo dhan waxa leedahay bye bye iyo macsalaamo hadda liinta sidaas ayaan usoo jarjaray 3 xabo kadib waxaan rabaa liinta inaan soo karkariyo oo aan dabka soo saaro digsi ayaan dabka soo saartay digsiga markii aan dabka soo saartay kadib waxaan ku shubtay in yar oo biyo ah glass biyo ah kadibna dabkii ayaan la soo saaray waxaan rabaa ilaa iyo 10 daqiiqo meelahaas inta liinta iiga bislaanayso inaan ku karkariyo markii liinta ii bislaato ii jilicdo ayaan dabka dejinayaa marka liinta sida u jeeda sidaas ay u karkaraysaa si fiican dab dheer ayaa saaran afaaraha markii aad sidan u samaysid injir oo kaliya madaxaada injirna uma soo dhawaanayso agoolna kaama galayo timaha siimana ma kaa siimayaan maqaarka dhintay ee tinta madaxa ku yaalana way safeynaysaa oo maqaar cusub inay ku abuurto waxa oo yacni bilaabana inay timo cusub oo qurux badan ay ku abuurmaan haddana dabka waa aan ka soo damiyay markii aan dabka soo damiyay kadib ii soo qaboodana waa u jeedaa sidaan u jeeda ayaa iigu soo baxday biyihii waxay noqdeen maasha Allah biyo yara jiitamayo oo fadhiyo liintan waxay noqotay liin aad iyo aad u bisil oo kaleeto oo jilicsan waxaan rabnaa inaan soo shiidno ee noo noqoto wax yar oo cream ah oo qurux badan ayadii mooski inaan isku darsano liinta waa u jeedaa sida u jilicsta waxaa laga rabaa inay saas kuugu jilacdo haddana waxaan soo qaadanayaa in maxuu inta grafadka ama jeega lagu shiido juuska kadibna waan ku shubay kama miiranya biyihii liinta aan ku soo karkariyay waan qaboojiyay kaliya wixiisa dhan waan ku shubay kadibna waxaan ku darayaa moos 2 xabo moos ah intii markaas kugu aado hadaa hal qof tahay hadaa 2 tahay hadaa 3 tahay aniga hadaa 4 gabar ayaan rabaa inaan u isticmaalo marka muxuu ahayntood waan ku darayaa markii aan ku daray kadibna maxaan rabaa inaan soo shiido alaabtan hadii aad injirka carar tahay isticmaal hadii agool ku wareeriyay haday timaha iska qabsanayaan oo kaleento waa isticmaali karto timaha furfur iyo xariir ayay ka dhigaysaa kadib markii aan soo shiido u jeedaa sidaan ayay ku soo baxdo oo creamka ah oo qatarta ah oo jaalaha ah kadib maxaan waxaan soo qaadanayaa muxuu inta kan waxa lagu miiro kaleento markii aan soo qaadano qashinka yar ee ku jiro ayaa iska miiraya sababtoo ah sidiisa madaxa ku mirisid madaxaad hadhow wuxuu yeelanayaa qashin shanla ayaa ku dilayso marka sida aan shanlad uga badbaadin lahayn waxaan rabnaa alaab yar oo cream ah inay noo soo baxdo waan ku shubayaa shabaqa markii aan ku shubano waxaan iska miirayaa qashinkii yacni liinta maadaama oo qobkeedii aan soo jijibinay marka waxaan rabnaa inaan qobkeeda aan iska dhameyno waxaan rabnaa liinta nafaqadeedii iyo mooskii inaan qaadano hadda gabdhow waxaan idin leeyahay alaabtan ciida ka hor isticmaala kuna masaajiya madaxiina haddii uu madaxaada injir lahay ama uu qolof lahay qolofta waxaan ka wadaa agoolka ama uu ku bixi waaye liinta waxay siinaysaa timaha inay babirqiso inay timo adag ka dhigto waxayna siinaysaa muxuu ahayntood inay timaha ay ka dhigto tumi cusub ee soo saarto aflaaqada timaha dhintay ee madaxa ku jirana way ka saaraysaa inay timaha waxay ka dhigaysaa oo kaleento injirtoo kaleento ee ka hortagto aysan ku soo gelin haday ku soo gashan ee maasha Allah hal xabo uu ku jiro xitaa oo hore ka dhimanaysa mar labaad aadan ku noqonaynin inta badan injirta waxa keena dadka
kulayladoo kale meelaha kulaylka joog madaxa ka dhidaay dadka ilmaha inta badan madaxa loo daba saaluunada la geeyo kale taasna iska dhaafa insha Allah marka waxaan ilaahay waxaan filayaa gabdhihii iga sugaya jawaabta maxaan suubinaa maadaama injirna wareerisi dhahay anagoo dadaaleyno oo hooyo oo isbuuci 2 mar 3 mar madax hagaajinayna nafaqo marneen haddana aysan ka dhamaanin waxaysan uga dhamaanin waxa way injirta ukun ayay madaxa ku reebanaysaa geesaha dhaxda marka tii ayaa soo buqayso mid cusub ayaa ka dhalanaysa adiga midii hore bixisay laakiin ilmihii ayaa meesha u yaalo marka si ay ilmihii uga dishid ilmahoodii ay u dhintaan ayaa alaabtan ay ka qayb qaadanaysaa ma fahamteen si ay ilmihii injirta u dhintaan u baaba'aan ay alaabtan ka qayb qaadanaysaa haddana ilmihii way dejinaysaa timaha way siibanayaan waxay ka siibanaysaa ukunti way ka siibanaysaa dhulka ayay ku dhacaysaa jawaab waxaan ku soo gabdhaha numberkayga way haayaan igu soo wareeri idhaayaan ku soo celceli war ku soo celi noo soo sheeg yani xitaa afku waa uga sheeg way ku qanci waayeen yani noo sidee u sameynaa saa u sameynayna ma fahmin yani inta ka fahma marka insha Allah marka maxaa idin leeyahay insha Allah haddii aad injir iyo agoolba la dhibaneed gabdhow alaabta isticmaala waxaa laga yaabaa inay gabdho kaleento u baahan yihiin ayagana sidaas oo kaleento aysan fursad ay ugu weydiiyaan aysan helin waa ujeedaa alaabta sida kareem u tahay quruxda jaalaha carafta sida liintii oo kaleeto usoo carfaysa sirtan ay idinka dabageeyay markaa sidan liinta aa u marsatid oo u samaysid oo kaleento cun ilmaha dhan ma u yeelayso kadib waxaan ku darsanayaa saliidii hanaansan kids oil waa midda ilmaha hada qof weyn tahana midda dadka waaweyn oo kala ku darsan karta laakiin adiga hadii aadan haysan saliid alaali saliid daarta isticmaal saliidan timaha ayaa ka qayb qaadanaysa dhirirkooda nafaqeyntooda iyo inay agoolka ka saarto kaleento maxaan idin leeyahay insha Allah hadii aad u baahantahay inay timahaada ay maxaa inta jajabka iyo siibashada ay ka bixi waayaan ee kaaga baxaan si degdeg iyo wali muddo gaaban waa soo dalba kartaa insha Allah numberkaygana qaybta hoose ayaan ku soo qorayaa biidnillah alkarim saliid ayaan ku daray kadibna waa isku qasaaya markii aan ku qas kadibna sidaas iyo kusoo baxda kareem hada quruxda bal fiiriya waa wax yar oo fudud gurigaada ku yaalo ka heli kartid yani nafaqooyin fara badan u leh oo madaxaadana siinaya nafaqo masha Allah aad iyo aad wanaagsan gabdho badan ayaa mar walba isoo weydiin ayaga dhahaa cirrada wax madoobay ayadana waa soo wada insha Allah marka maxaa inta aan mashquulkayga iska badan bariyaha xitaa gabdho badan ay tabay oo arkay masha Allah mahadsantiin gabdhaha si fiican ila socod mar walba waa ku weyn bariyaha intee ka baxday xoogaa waa iskiira caajisa laakiin insha Allah hadda waa soo noqday aan isku soo duceeyay biidnillah alkarim ramadaanka dhamaanaya insha Allah inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabad noogu dhameeyo inta dhiman nabad noogu dhameeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwii laga aqbalano oo naga dhiga biidnillah alkarim cuduradan iyo waxyaalahan jirin oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhinac naga maray biidnillah alkarim marka kareemkeeni sidaas uu ku soo baxay madaxaada waa marinaysa waa ku masaajeynaysa bac yara la gashanaysa marka bacdaada gashid oo kuugu huurnay waa ka dhaqanaysa 3 saacadood ilaa 2 saac kadib 3 saac 2 saac kadib marka ka dhaqnayna natiijada adiga arki doona insha Allah fadlan hadii ay markuu ugu horeysay asoo booqatid waxa laga codsanaa janaka qurxin subscribe dhe beelkana on ka dhigo una sii share garay asxaabta assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bye bye